السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلة يتلذيني مانتا يسكو سولا بشو ناكسن. مانتا وحينو وحكا أوران دونا وحينو أودنا إنaynu qurxisano oo aynu qurux badnaysiisano maalinteena oo dhammaystiran. waxa kaloo suuragal ah inaynu fool xumayno oo ay noqoto maalinteenu maalin ina moraal disha oo runtii ka hor timaada yoolkii aynu dejisanay xalay toole. si aynu haddaba u qurxisano maalinteena oo idil una noqoto maalin qurux badan oo runtii ina soo dhaweysa oo ina dhiirigelisa isla markaana aynu ku gaadhno yoolalkii iyo hamiyadii aynu lahayn. waxaa qurux badan inaynu ku bilaabano aroorta hore inaynu aroorteena hore ku bilaabano salaada waajibka salaada subax. markastoo aad doonaysa inay maalintaadu qurux badnaato oo ay noqoto maalin degan oo aad iyo aad u qiimo badan oo runtii farxadi ay ku dheehan tahay isla markaana ay kaaga soo noqdaan wax kastoo aad midhaheedii beeratay subaxii hore, waxaa muhiima inaynu maalinteena ku bilaabano salaada subax ee waajibka. marka aynu cibaadaysano ee aynu ilaahay hor istaagno ee aynu salaada subax aadnaynu tukanno waa inaynu ku qaabilo duco aynu ku xigsiinaa. marka aynu ducaysano ee ducadu inoo dhammaato waa inaynu u dhaqaaqnaa oo aynu ku noqon aynaan hurdada ku noqone aynu u dhaqaaqnaa sidii aynu u horumarin lahayn ama aynu u gaari lahayn yoolalkii maalinimo ee nolol maalmeedkeena. sideedaba maxaynu ku qurxisan karnaa haddaba maalinteena? waxaa kaloo aynu ku qurxisan karnaa maalinteena inaynu maalintaasoo dhan aynu gaadhsiino oo aynu joogtayno salaantaasoo noqonaysa qof kasta oo kaasoo horbaxa oo waalid kuugu toosan ama ehel kuugu toosan amaba asxaab kula ah ama ay shaqa idin midayso inaad salaan waafiya oo qalbiga iyo weliba kasoo goday qalbiga inaad ku bariidiso oo aad ku salaanto. markasta oo aad salaanta xoojiso oo aad salaanta badiso waxaa iman doonta inay dadku ku wada jeclaadaan. waxaa kaloo aynu ku kaabaynaa si ay maalinteenu u noqoto maalin qurux badan inaynu ismailin dhoola cadayno oo aynu dhoola cadayn ku qaabilo oo aynu mar walba haddaynu shaqo ku jirno iyo haddaynu suuq soconno iyo haddii aynu dabcan waalidiinteen la joognaba inaynu mar walba dhoola cadayno. markasta oo ay taasi dhabowdo oo aynu maalin qurux badan rajaynayno waxaa iman doonta dadku inay kusoo wada raacaan, inay dadkuna ku wada dhoola cadeeyaan, inay runtii shaqadaadii kuu fududaato oo shaqo qurux badani kuu dhacdo. waxaa inala gudboon haddaba markastoo aynu doonayno inaynu la soo noqono guul iyo rayrayn inaynu maalinteena ku bilaabano salaada faralka oo aynu tukanno, ducada oo aynu badino iyo isla markaana dhoola cadayn joogtaa oo aynu maalintaasoo dhan aynu wadno kuna qaabilo. taasi waxay furfuri doontaa albaabo badan oo runtii inaga xidhnaa. waxay furfuri doontaa dad badan oo aan nala hadli jirin. waxay xasilin doontaa in booskaagu uusan cuqdad iyo cadhatoona kuu qaadin, waayo adigaaba waxaad tahay qof qalbi furan oo laab xaadhan oo dhoola cadayn badan oo sidoo kale ku bilowday subaxdiisii ku bilowday maalinimadkiisii waajibaadkii rabbi uu saaray ee faralka ahaa ee salaadaha. waxaa markaan idinkaga tegayaa markastoo aynu guul iyo yool leenahay inaynu ku furfuranno wakhtigeena subax salaada dhoola cadaynta iyo weliba bariidada joogtada ah. aad baad u mahadsantihiin. waxaa inoo ballana ka kan xigay insha allah. thank you.